It will begin to look like a long shot if Abdi Sharif can make it 3-1 Liverpool here. Sharif, who improved and improved throughout the game, and now ready to make a big mark on this, which he does. 3-1 Liverpool. That's another quality penalty there from Abdi Sharif. Massive penalty for Liverpool just to give themselves a little bit more breathing space. gelinkii dambe ee shalay ayaa lagu shaaciyay website-ka naadiga kubadda cagta ee Liverpool in Abdi Sharif uu ka mid noqday naadiga waaweyn ee Liverpool. Soomaaligii ugu horeeyay oo ciyaara kooxda Liverpool ayuu noqonayaa. Laacibkan qadka dhexe 18 sano jirka waxa uu kooxda ka tirsanaa ilaa markii uu xijirka ahaa. Abdi Sharif waa wiil Soomaaliyeed oo ciyaara kooxda Liverpool. Waxa uu kooxda la saxday heshiis heer sare oo uu kaga mid noqonaya laacibiinta ay Liverpool ku tashato. Laacibkan qadka dhexe 18 sano jirka waxa uu kooxda ka tirsanaa ilaa markii uu xijirka ahaa. wuxuuna 3 sano ka hor bilaabay inuu kooxda u ciyaaro ayaa lagu yiri war saxaafeed ay Liverpool soo saartay. waxa uu ciyaaruhu ku bilaabay tartanka FA ee dhalinyarada. waxa uu kulankii ugu dambeeyay dhaliyay gool kulaad ay Liverpool ku qaaday koobka. waxay ahayd markii ugu horeysay muddo 12 sano oo ay kooxda heerka gaarto. sidee u arkaan laacibiinta Liverpool? Steven Gerrard oo kabtankii hore ee naadiga ah waxa uu toddobaadkii hore sheegay in qaab dhismeedka Abdi uu dhigmo ciyaartoyda waaweyn. wuxuuna Gerrard intaasi raaciyay Abdi inuu orodka aad ugu wanaagsan yahay lugana dhaadheer yahay waxa uu ka dhex muuqday kooxdiisa iyo ciyaartoyda keedka. sidaa darteed waxaanu isku dayaynaa in Abdi aynu ku boorino sidii uu noqon lahaa mid ciyaaraha kooxda waaweyn ka qayb qaata. 100% waan ku raacsanahay Sharif oo 18 sano jira inuu tababar dhawaan uu ku qaatay akademiyada kooxda si uu qayb uga noqdo naadiga Liverpool. bilow aad u wanaagsan ayaan ku bilowday xilli ciyaareedkan, laakiin ciyaartoy kasta waxa uu leeyahay xirfad ciyaareed oo u gaar ah. aniguna waxaan wadaa dadaal intii awoodeyda ah. Stephen iyo tababaruhu wax badan ayay ugu dhiirigeliyeen ciyaartoy ahaan. aad ayaan ugu baahanahay aniga ahaan si aan xirfadeeda ciyaareed ay sare u noqoto. ciyaaraha heerkii loo baahnaana aan u gaaro waa inaan dadaalaa. dhiirigelinta noocaasi waan u baahanahay. Stephen wuxuu mar walba igala shaqeeyaa sidii aan xirfadeeda goor walba ku horumarin lahaa. Abdi Sharif waxa uu ku dhashay Soomaaliya. waxa uu ku soo barbaaray Tokth. Sharif waxa uu ciyaaraha kubadda cagta bilaabay markii ay qoyskiisu ka hayaameen Soomaaliya. UK-na ay gaareen isagoo 3 sano jir ah. wuxuuna waqtigiisa caruurnimada uu la soo qaatay bulshooyinka St Margaret iyo dugsigii hoose ee Lawrence. inta badan xilliyada uu fasax yahay isaga iyo walaalkii oo 9 jira waxa ay wada ciyaari jireen kubadda cagta. taageerayaal badan ayaan lahayn aniga iyo walaalkay. markaan kubadda wada ciyaari jirnay waxaan ahaa qof adag. guuldarada ama in la iga raayo ma jecleen, ayuu yiri ciyaartoygan da'da yar ee Sharif. markii ay da'diisu 6 jir gaartay, Sharif waxa uu nasiib u helay in tababar uu ka qayb qaato oo kooxda Liverpool ah. wuxuuna markaasi toos ugu biiray akademiyada kooxda kubadda cagta ee Reds. mar walba waxaan u fiirsadaa Abdi Sharif. markastoo uu ciyaarayo si gaar ah ayaan u daawadaa ciyaaraha uu soo bandhigo, xeeladihiisa, xirfadiisa, dabeecadihiisa, sida ay uga go'an tahay inuu kooxda kusoo biro. Sharif wax waliba oo looga baahnaa ciyaartoy ayuu leeyahay, gaar ahaan xirfadda ay kooxdan Liverpool u baahneed waa uu leeyahay, ayaa lagu yiri qoraal kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Sharif waxa marar badan loo xil saaray inuu kooxda dhalinyarada ee Liverpool uga ciyaaro difaaca dambe iyo dhanka midig, balse Abdi waxa uu aaminsan yahay mustaqbalkiisa fog inuu ka ciyaaro qadka dhexe. marka hore qadka dhexe inaan ka ciyaaro ayaan ciyaaraha u soo galay, laakiin markii dambe waa la iga wareejiyay, ayuu yiri. qadka dhexe inaan ka ciyaaro ayaan anigu jeclahay, waa haddii ay kooxdu ku qanacdo sida aan u ciyaarayo. anigusa mar walba diyaar ayaan u ahay inaan qadka dhexe ka ciyaaro, ayuu hadalkiisa ku sii daray. markaad caruur tahay iyo markaaad soo weynaatidba waxa aad mar walba ku taamaysaa waxa ay tahay inaad kooxda Liverpool markaasi dhalinyaradeeda ka baxdid, waaweynkeedana aad ka mid noqotid. waxa ugu wanaagsan ee aan haminayna waa taas, ayuu Sharif hadalkiisa ku soo afmeeray. bulshada Soomaaliyeed ayuu wacaal farxadeed u noqday hadalka ciyaartoygan iyo saxiixa kooxda Liverpool ay si rasmi ah ula sameysay markii ugu horeysay xirfadiisa ciyaareed laacibka Abdi Sharif. wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliya Marwaqdijo Maxamed Diiriye ayaa boggeeda Facebook ku tiri guusha uu gaaray 18 sano jirkan qadka dhexe waa mid u soo hoyatay guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed. dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariisow ayaa qoraal dhiirigelin uu soo dhigay isla boggiisa Facebook.
wuxuu ku ammaanay horumarka uu higsanaya Abdi Sharif kadib la wareegista kooxda Liverpool ayaa kaalinta labaad ka gashay kala sareynta horyaalka wadanka Ingiriiska xilli ciyaareedkii hore. Manchester City ayaana koowaad ku soo baxday. Liverpool waxa ay ku guuleystay 2018-2019 ololaha koobka Champions League oo Tottenham ay kaga qaaday magaalada Madrid ee caasimadda wadanka Spain. It will begin to look like a long shot if Abdi Sharif can make it 3-1 Liverpool here. Sharif, who improved and improved